dad badani waxay isweydiiyaan waa maxay sirta ka dambaysa dadka hodanka ah inay ka nasiib badan yihiin ma ahan inay ka lacag badan yihiin ee waa hal shay. maanta halkan uma joogo inaan kuu sheego hadallo macaan oo keliya, waxaan halkan u joogaa inaan kuu sheego hubka qarsoon ee bedeli kara noloshaada. haddii aad dareemayso inaad nolosha ku dhex wareersan tahay, haddii aad bilowdo waxyaabo badan oo aad dhimaystiri weydo, muuqaalkani waa muuqaalkaada. daqiiqadaha soo socda waxay noloshaada ka dhigi karaa mid leh jiho iyo natiijo muuqata. mid koowaad, waa maxay joogtaynta? joogtayntu ma ahan inaad maalin walba qabato shaqo weyn, waa inaad qabataa shaqo yar xitaa haddii aadan lahayn wax ku dhiirigeliya. dhiirigelintu waa sida dabeesha oo kale, mar ayay timaadaa marna way ka tagtaa, laakiin joogtayntu waa matoorka markabka oo kale oo kugu kaxaynaya meeshii aad rabto xitaa haddii ay dabeeshu istaagto. tusaale, dhibicda biyaha ah oo maalin walba ku dhacdo dhagaxa ma ahan mid xoog weyn, laakiin waxay sababtaa inay dhagax duleeliso. taasina waa natiijada joogtaynta. adiguna maanta waxaad tahay dhibicdii biyaha ahayd. maxaa rabtaa inaad joogtayto si aad u gaarto hadafka aad ka leedahay nolosha? ma ganacsi baa? ma waxbarashaa? ma jirdhis baa? maxaa rabtaa inaad joogtayso? nambarka labaad, caqabadaha joogtaynta. waxaa jira 3 cadow oo dila joogtaynta, kuwaas oo u baahan inaan maanta wajahno. sugitaanka natiijada degdega ah. waxaan rabnaa inaan maanta bilowno jirdhis, berina aan aragno murqo. kaamilnimo, inaad si khaldan wax u qabato adiga oo joogtaynayo ayaa ka fiican inaad si sax u qabato hal mar oo keliya. hadalka dadka kale. markaad bilowdo wax cusub, dadku way kuu qosli doonaan, laakiin markii aad joogtayso oo aad guul gaarto, waxay ku weydiin doonaan sidee u samaysay. nambarka 3, sidee loo dhisaa cadaaladda joogtaynta? aad rabto inaad caado cusub bilowdo, ka dhig mid kugu qaadata wax ka yar 2 daqiiqo. ma rabtaa inaad orodid kabaha oo keliya maanta xiro? haddii aad bilowdo way kuu fududaan doontaa inaad sii wadid. qaado kalendaariga, maalin walba oo aad qabato shaqo yar saar x weyn. sidaad og tahay, maalintii ugu horeysay oo aan bilaabi jiray YouTube-kan, muuqaaladeedii ugu horreeyay waxay ahaayeen sida tan, maantana waa sidan. taasi waa natiijada joogtaynta. maanta qof kasta oo isticmaala YouTube wuu yaqaanaa Mr Beast, laakiin dad yar ayaa og dhibkii uu soo maray. wuxuu bilaabay inuu muuqaalo soo geliyo isagoo 13 jir ah. muddo 5 sano ah muuqaaladiisu ma helin wax ka badan 1000 qof oo daawata. ma jirin lacag uu ka sameeyey. saaxiibadiisii waxay u haysteen inuu waqtiga iska luminayo, laakiin isaga ma joojinin. wuxuu maalin kasta baranaya sidii loo sameeyo thumbnail ka qurux badan kii hore iyo ciwaan ka duwan kii hore. maantana waa qofka ugu saameynta badan YouTube-ka adduunka oo dhan, isaga oo leh 100 milyan oo subscribe ah. haddii aad qabato shaqo yar maalin kasta oo aad wax ka beddesho shaqadii hore, suurtagal ma ahan inaad guuldaraysato. xasuusnaaw, guushu ma ahan dhalanteed, waa natiijada 10 saacadood oo shaqo ah oo qof kale uusan ogeyn. dadku waxay arkaan guusha haween qura timid, laakiin adiga keliya ayaa og habeenadii aad soo jeeday oo daalan oo haddana shaqaynaya. ogsoonow, noloshu waa natiijada waxyaabaha yaryar oo maalin walba aad samayso. haddii aad maanta joogtayso, barashada beri waxay noqon doontaa mid sahlan oo ku fududaan doonto. haddii aad maanta joogtayto, barashada beri waxaad noqon doontaa qof aqoon leh. haddii maanta aad joogtayto, dhibka beri waxaad noqon doontaa qof karti iyo ad adeeg leh. guushu ma ahan waxa ku dhaca dadka nasiibka leh oo keliya, ee waa natiijada ficil yaryar oo la joogteeyey 30 maalmood iyo in ka badan. dhiirigelin ee sameey shaqada. joogtayntu waa saaxiibka keliya ee aan marnaba ku khiyaanaynin. haddii aad muuqaalkan ka heshay, la wadaag qof aad jeceshahay inuu guulaysto. waxaa inoo balan ah muuqaalka xigo.